haweenaydu waxay rabtay oo keliya inay tijaabiso dhumucda barafka. laakiin ilbiriqsigii xigay barafkii harada ayaa si lama filaan ah u dilaacay, waxayna si toos ah ugu dhacday biyihii qabowaa. ninkeeda ayaa si degdeg ah ugu cararay si uu u badbaadiyo, halka eygoodii daacadda ahaa uu isla markiiba dareemay inay halis ku jirto. wuxuu daba orday ninka isagoo aan ka labalabayn. hase yeeshee ka hor intii aysan gaarin biyihii xoogga badnaa ayaa haweenaydii si xawli leh ula tegay. eygoodii oo lagu magacaabo baak ayaa dardar dheeraad ah sameeyey, isaguna biyaha ayuu isku tuuray. qabowga daran ee biyaha awgiis haweenaydii dhaqso ah ayay u miyir beeshay. baak wuxuu u dabaashay dhinaceeda isagoo isku dayaya inuu soo badbaadiyo. baak wuxuu raacay tilmaamaha eeyaha kale, ugu dambayntiina wuxuu helay meel barafku ka khafiifsanaa. wuxuu isticmaalay awooddiisa oo dhan isagoo si isdaba joog ah madaxa ugu dhuftay barafka si uu u jebiyo. ugu dambayntii haweenaydii waa la badbaadiyey. laakiin markii ninkeedu isku dayay inuu kor uga soo jiido biyaha, baak oo tabartiisii dhammaatay ayaa mar kale ku dhacay biyihii qaboobaa. ninkii aad buu uga naxay. wuxuu ku duldhacay barafka isagoo si waali ah u raadinaya raadkii eygiisa uu jeclaa. kadib wuxuu bilaabay inuu mindidiisa ku jebiyo barafka, balse barafku aad buu u adkaa, waxaana gariirka xooggiisa awgiis mindidii u kala jabtay 2 qaybood. isagoo murugo iyo quus ku dhacday ayuu si lama filaan ah u arkay ul alwaax ah oo loo soo dhiibayo. isagoo aan ka fiirsan ayuu qaatay, wuxuuna ku sii waday jebinta barafka. wax yar kadib ayuu dareemay inay wax qaldan yihiin. markii uu dhinaciisa eegay, wuxuu si lama filaan ah u arkay baak oo taagan dhinaciisa, farxaddii dib u helista eygii uu jeclaa darteed. ninkii si adag ayuu isugu duubay baak isagoo la ilmaynaya farxada.